السلام عليكم. انت aadan gaarin 30 sano ka istaag samaynta 6 caado 6 arrimood ha samayn waa dadka fooda la sii galaya 30ka ama ku dhow waxaan qiyaasayaa in dhalinyarada ku xiran kanaalkeena intooda badan ay dahaan u dhaxeeyaan 20 ilaa 30 sano haddaba haddaadan gaarin 30 sano waqti aan badnayn kaaga dhiman yahay halkan waxaan kugu soo gudbinayaa arrimo laga rabo inaad ka harta samayntooda maslaxadaada darteed ku soo dhawaada mowduuceena maanta. cumrigu aad ayuu u socdaa shalay waxaad ahayd wiil ama gabar yar oo ayna mas'uuliyad saarnayn keliya inaad ciyaarto hawshaad u tahay muddo kadib waxaad is aragtay adigoo iskuul lagu geeyey lagaana rabo waajiba ka shaqaynta maadooyinka iskuulka muddo kadib waxaad noqotay qof dhammaystiran awood ahaan iyo caqli ahaanba waxaad ku soo baraarugtay adigoo 20 sano ka tallaabay laakiin xaqiiqada dhabta waxaad dareemi markaad gaarto 30 sano oo ah marxalad aad muhiim u ah waa fasalka labaad ee dhalinyaranimada waxaad galaysaa xaalad lagaa rabo inaad ka harto arrimo badanood samayn jirtay si aad noloshaada u badbaadiso ciyaartooyda kubadda cagta intooda badan bilowga sodomeeyada ayay kubadda ka fariistaan 33 34 inta ugu badan kuwa aanan badnayn ayaa dhaafa da'daas taasoo ku tusinaysa ahmiyadda marxaladaas haddaba haddaadan gaari 30 sano waxaad haysataa fursad badan oo aad naftaada wax badan uga beddeli karto qodobka koobaad wax ujeed ma lihid in ay jiraan ujeedooyin aad xaqiijinayso noloshaada waa shay muhiima weliba qasaba in aad leedahay waxaad hiigsanayso waana farqiga u dhexeeya guusha iyo fashilka haddii aad nooshahay hadaf ama ujeed la'aan wakhtigu si dhaqsa ayuu kugu dhaafi waxaad indhaha soo kala qaadaysaa xilli lafahaadu jilceen murqihii xooggana howlgabeen jilbaha iyo dhabarka xanuun kugu bilowday taasoo ah digniin adag oo ah in aad tabar yaraysay haddii aad ujeed la'aan nooshahay khatar weyn ayaa ku soo food saaraysa noloshaada naftaada dib ugu laabo qalin iyo buugna soo qaado kadibna deji waxa aad rabta inaad xaqiijiso oo kuu hergalo 1979kii baarayaal ka tirsan jaamacadda Harvard ayaa ardayda jaamacadda kuwa ka mida weydiiyey in ay leeyihiin ujeedooyin cad oo ay rabaan in ay xaqiijiyaan haddaba 84% ardaydaas waxay sheegeen in ayna wax ujeeda lahayn halka 13% ay sheegeen in ay leeyihiin ujeedooyin laakiin ayna qornayn halka sidoo kale 3% kaliya ay sheegeen in ay leeyihiin ujeedooyin qoran 10 sano kadib waxaa la ogaaday in kuwii lahaa ujeedooyin qoran ay noloshoodu ahayd mid dhinac walba ka hormarsan marka loo fiiriyo kuwa aanan wax hadaf aanan lahayn ujeedooyinka tusaale ahaan in aad ujeed ka dhigato dhisidda guri karaamada bini'aadamka u qalmo muddo gudaheed in aad barato cilmi aad jeceshahay ilaahay duruufa ayuu kuu sakhiri waxaana lagu dhaqaajin dabeelaha si ujeedkaada u hergalo qodobka labaad shabakadaha bulshada waa aafada wakhtigan waana god madow oo muudsanaya wakhtigaada ku dhaxal siinayana shalayta aad weligaa iloobin facebook iyo social media waxay ku gelinayaan xalaqo fashil iyo khasaare aan dhammaad lahayn waa sida aan hadda inteena badan u isticmaalna ah iska dulfadhiga heer waxaad gaaraysaa aad karaamadaada iyo jiritaankaada ilkahaada ku rifto adiga ayaa isku wareegan maanta halkaasay ka shidan tahay maanta halkan ayaan joogaa maanta cunno noocaas ayaan cunay maalin kasta sidaas ayaad samayn waa mareeg aan dhammaad lahayn ood ku wareeganayso sidii jiir dabin ku dhacay waqtigu waa adiga waa waxa aad tahay haddii aad 24 saac dul fadhida social media oo aad facebook kor iyo hoos u gedinayso waxaad ku jirtaa xaalad aad u adag haddii aad hadda 20 ku jirto daahaan qaladkan waxaad dareemi maalintaad gaarto 30 sano fadlan xigmadda alla ku siiyey la soo kala bax ha u ogolaan facebook inuu noloshaada hogaamiyo qodobka saddexaad fiirsashada pornographic aflaamta xun oo ah burbur qoto dheero naftaada ku dhufto kumanaan baaritaana qayladhaan wato ayaa maalin kasta caalamka oo dhan laga soo saaraa khatarta uu leeyahay fiirsashada muuqaaladaas daraasad dheer oo jarmalka lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday in mar kasta uu qofku fiirsado aflaamtaas ay sii yaraanaysa maskaxdiisa heer uu gaaro marxalad aad halis u ah waxaa la ogaaday in dhaawaca mukhaadaraadku maskaxda ku reeba mid la mida ay daawashada aflaamtaas ku reebaan maskaxda fiirsashada aflaamtaas waa halaaga dhabta waana waddada ugu dhow ee aakhiraya adduunba lagu halaagsamo ilaahay galmada sharci darrada wuxuu ku tilmaamay in ay tahay waddada ugu xun ee qof bini'aadama qaado abid walaa taqrabu الzinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila marka maxaad u malaynaysaa fiirsashada arrinkaas aadka u foosha xun oo ay ka dhalan karaan dabcan natiijooyin aad u xun waxaa la gaaray wakhtigii maskaxdu shaqayn lahayd qodobka afaraad hurdada
marka la leeyahay hurdo waxaa loola jeedaa in aad wakhti dheer jiifto iyo in aadan seexanin labadaba waa khatar halis ku ah geedi socodka noloshaada xilliyadan dhallinyarada waxaa aad loogu yaqaanaa soo jeedka weliba farqi weyn ayaa u dhexeeya midka xilligan iyo kii hore wakhtigan waxaa lagu soo jeedaa aaladaha maskaxda indhaha daalinayo soo jeedka badan jirka ayuu daciifiyaa waxaa yaraanaya wax iska caabinta jirka waxaadna qarka u fuulaysaa ama ku soo wajahayo cudurro kala duwan haddaba ka fogow soo jeedka marxaladda dhallinyaranimada waa marxaladda beeritaanka waxa aad maanta beeratana berri ayaad guran laakiin haddii aad maanta hurdo iyo ciyaar beerato berrina waxaad guran midhaha saboolnimada iyo dulliga faqriga mar kasta oo aad dadaasho waxaad helaysaa natiijo fiican qodobka shanaad wax ma kaydsatid soomaalidu waxay ku maahmaahda dadka waxaa ugu xun matoshe matashada iyo matashiishe waxay leeyihiin haddii aad labaatimeeye ku jirto isku day inaad dakhliga ku soo galo wax uun kaydiso oo aad kala reebto si aad mustaqbalka mashaariicdaada ugu fushato 20 ilaa 30 sano 10 sano waa marxalad aad muhiim u ah waa marxaladda awoodda iyo firfircoonida waxaa laga rabaa inaad wixii ilaahay risqi ku siiyey aad hal mar afka ku wada gurin ee aad kala reebato mustaqbalka darteed haddii aad $100 bishii qaadato waxay leeyihiin khubaradu $10 kaydi kaydinta ilaahay ka digay ma ahan midda noocan oo kale ah waa midda qofka kumanaan dahab iyo fidaa makhsan ku guro kadibna uusan bixinin waa sakada iyo xaqii lagu lahaa haddaba kala reebo oo wax kaydso qodobka 6 barashada xirfad marxaladda 30 waa xilliga ku shaqaynta xirfadihii iyo wixii aad soo baratay waa waqtiga xoog saaridda sal u dhigidda wixii aad baratay haddii aad qora ahayd ka hor 30 inta aadan gaarin waxaa laga rabaa markaad 30 gaarto in aad waqti fiican geliso sidii aad xididada ugu dhigi lahayd xirfaddaas oo hawshaad u noqoto qiimo u yeelidda xirfaddaas muhiimaddu waa inaad leedahay cumrigaas ka hor xirfad noocay doontaa ahaatee in aadan 30 sano gaarin adigoo faramaran 30 sano markaad gaarto noloshaada waxay noqonaysaa xoojinta wixii aad soo baratay taas kama dhigno in aadan wax cusub baran karin waad baran kartaa laakiin wixii aad markii hore si aanan qoto dheer u dulmari jirtay waa inaad xoojisaa markaan xididadana u dhigtaa wixii xirfad iyo aqoon aad soo baratay cumrigaada dhabta waa 20 sano inta u dhaxaysa 20 jir ilaa 40 jir waana wakhtiga aad wax badan xaqiijin karto haddaba dib isugu laabo kana fikir mustaqbalkaada beddelna falsafada noloshaada ka dhig mid miro dhalla